ilaalinayse ishikugu gubtaayo abka ala direrta ishikugu gubtaayo abka ala direrta abakuma ogahadi idakuma adareeshe walbakula hadada taliyihiisa saldhigga bartamaha degmada Gaalkacyo Jaac Maxamed Qabsane waxaan rabaa halkan inaan fariin yar bulshada kala wadaago Gaalkacyo waa saldhiggii dhexe weeye dhacdo yar oo ka dhacday gabadhan oo wax gaareen oo maamada u geysatay waaridkeeda oo eedadeeda ay u geysatay arintaas waanu soo qabanay waana ka howlgalay annaga iyo wasaaradda ururka haweenka wasaaradda haweenka iyo ururka haweenka waan ka howlgalay waan ku soo guulaysanay kiiska waa soo qabanay kiiskaas inaanu ka jawaabnay ayaan bulshada la wadaagayaa oo sheegaya markaan ogaanay xaaladaas oo si fiican u dirsanay boodka helay oo ka jawaabnay waxaan u sheegayaa xogaa yar oo kale oo la dhigay oo aflagaada oo la dhigay facebookyada la geliyay arintaasu arin saldhigga timid ama horey noogu timid soo gaadhay ma ahayn arintaas waxaan rabnaa cidii gelisay aad baanu waxaan rabnaa inaan dabagal ku sameeyno soona qabanno dambiilahaas lana xisaabtano waayo isagoon soo ogeysiin una soo sheegin booliiskii ayuu faafiyay dhaleeceeyay saldhigina waana soo qabanaa insha Allah waana dabagalaynaa tan waxaan rabaa dhacdadaas inaan la wadaago kana jawaabnay gabadhii iyo maamadiiba hadda saldhigga dhexe ay ku sugan yihiin ilaahay baa mahad iska leh waxaanu ku sugannahay saldhigga bartamaha oo aanu maanta ku soo gabagabaynay ilaahay noo soo fududeeyay kiis yara oo nagala qayb qaateen taliyaha saldhigga iyo booliiska taliye jaamac anagoo oo anoo gudoomiyaha ururka haweenka iyo bishaar oo isu duwihii arrimaha wasaaradda haweenka arintaas maanta 5 saac baan ogaanay anagu ka haween ahaan markii aan ogaanay aniga gudoomiyaha ururka haweenka markii la soo sheegay arintaas waxa iska leh roolkeeda iyo shaqadeeda si sharciyan oo sharciga waafaqsan wasaaradda haweenka waxa iska leh isu duwaha waxaan inform gareeyay warbixinta u gudbiyay isu duwaha arintaasna waa ka wada hawlgalay aniga iyo isu duwaha bishaaro oo ay shaqadooda tahay ilmaha tacdiyadu ku dhacaan iyo haweenka tacdiyadu ku dhacaan iyo dhibaatooyinkaas waxaan la soo kaashanay taliyaha saldhigga taliye jaamac aad buu u mahadsan yahay runtii maayada oo jimca oo aan shaqo jirin buu fasaxiisii iyo shaqadiisii iyo wixii uu lahaa hawl u soo beeldareeyay arintaas ilaahay waa nagu guuleeyay gabadh yar tahay ee dhibanaha ahayd nabarada iyo dhaawac ku yaalay Facebook aad ku arkayseen rib waa nagu soo guuleeyay gabadhaas waxa la yiraahdaa magaceeda qaali Ilyas Sheekh Cali maxaan ku dhahaa gabadhaas waxa sheegtay maamadaas luul Sheekh Cali Axmed oo eedadeed sheeganaysa luuley inay haysay oo ay gabadha gacanta ku haysay nabaraana gabadhaas ku yaala aan ahayn xuquuqda insaanka iyo midda caruurta iyo midda islaamka iyo midda bini aadanka midna aan ahayn loo geysto eedadeedna ay ka soo gaareen eedadeed marka waxay noo qiratay runtii waa qof aad wanaagsan waxay noo qiratay inay dambigaas geysatay oo gabadhaas ay u geysatay dambigaas haddana gabadhaas dhibanaha iyo luuley waxay hor joogaan sharciga waxaan gacanta ku hayaa saldhigga bartamaha oo taliyaha kiiskooda gacanta ku haya insha Allah annaguna asagan uga dambeyn doonaa waan kala shaqeyn doonaa haddana waxaan ku soo dhaweynayaa isu duwe bishaaro si ay xoogaa u faahfaahiso doorkooda wasaaradda iyo kiisaskan marka ay dhacaan siyaabaha ay uga howlgalaan ugu horeyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad iska leh marka labaad kiiska sida loo sheego weeye shukri waa ila soo maaragtay ila soo ogeysiisay kiiskan oo maanta xilli duhur ah waliba salaada jimcaada lagu jiro waa ogaanay kadibna sawirada Facebook la isla dhaxmarayo markaas waxa la soo xiriiray kaaliyaha maxkamadda oo burhaan runtii aad baa ugu mahad celinaya asaga markaas taliyaha saldhigga sii wargeliyay aad baa waxa kale ugu mahad celinaa Maxamed Cali Siyaado suxufi maanta oo dhan meeshii ku wada jirnay oo runtii xogtii nagu la dhex jiray oo xaaladana la ogaa waxa kale oo mahad celinaa cid kastoo ka qayb qaadatay kiiskan taliyaha qaybta muumin oo telefoon nagala shaqeynayay runtii cid kasta uga mahad celinayna kiiskan gabadha yarta oo arintaas ku dhacday binaantinimada ka baxsan
gabadha sida sawirada ku yaala nabarada ku yaala waa sax waa gabadha Facebook la dhigayo nabaradaas ku yaala waxaan rajaynaynaa in sharciga islaamka iyo kan dawladda Puntland waxa ka qabto laga marin doono maadaama maamadu qiraal tahay kiiskana sheekadiisa ku soo maaragtay ay tahay in gabadha ciidan loogu keenay waxa ay ku dishana ay tahay inaysan maaragtay ogoleen inay magaaladii joogto markastana ilmaha rabitaankiisa iska leh haddii insha Allah waxa rajaynaa in unaha dib loogu celin doono reerkoodii maamadana de wixii sharciga islaamka qabo lagu sameyn doono aad baa u mahadsantiin aad baan ugu mahadcelinayaa taliyaha saldhigga ciidanka sida emergency-ga uga jawaabeen. Salaam calaykum.